dunida maanta aynu ku nool lahay waxa muslimku uu ka yahay afartii qof ee meel soconayaba mid baa muslima waxay ku tilmaamayaan 1 bilyan 570 kun oo qof inay muslimiintu yihiin waa research kaasi hay'adda Mareykanka taala ay soo saartay tamacneedu waxa weeyaan 25% dadka dunida ku nool baynuuna haddana waxa la leeyahay marka aqoonta cilmiga science iyo technology-ga ama cilmiga iyo taqniyada marka la eego dunida xagga ugu dambeysay inuu kaga jirnaa xagga dhaqaalaha iyo siyaasadda marka la eegana waa layna marginalize gareeyay ama dad aan wax ka soo qaad lahayn maxaafisha dhaqaalaha iyo siyaasadda baba caalamul islaamiga waayo waxay soo qaadeen world GDP-ga yani waa gross domestic product wax soo saarka bini'aadamka ee dunida oo dhan basharkan 6 bilyan ee dunida saaran sanadkii wax soo saarkiisu waa imisa waxay yiraahdaan sanadkii bini'aadamkan dunida kor saaran oo dhami 60 trilyan qiimihiisu wuxuu u dhigmo ayuu soo saaraa 60 kaasi trilyan bay leeyihiin muslimiintan dunida afartii qofba mid ahi 3 trilyan bay soo saaraan 60 trilyan ee dunida wax soo saarkeeda muslimka oo dhan marka la isku daro 3 trilyan marka aan dib ugu noqday maxaa la yiraahdaa IMF ta iyo World Bank kama foga xisaabaadka halka ku sheegayaan waxa ay dhigayaan 3 trilyan si kale haddii loo eego bay leeyihiin bilyan iyo badhka muslimka ah waxay ka wax soo saar yaryihiin 70 milyan Faransiiska ku nool bilyan iyo badhka muslimka oo dhan marka la isku daro dawladda Faransiiska GDP-geeda ka badan muslimka joogo dhan marka la isku daro bay yiraahdeen 120 milyan ee Jabaaniiskii waxay soo saaraan nuskood bay soo saaraan ولا 20 milyan ee Jabaaniiska ayaa ku laabmaya muslimka dunida joogo dhan waxay soo saaraan ama se waa 1/5 wax soo saarka dawladda Mareykanka 300 milyan marka 5 meelood loo qabiyo meel ahaan ay wax soo saarka dunida muslimka oo dhan soo u dhigma si kale hadaan u tilmaamo kristanka oo tira ahaan dunida ka 5% wax soo saarkana waxay ka yihiin 70%